maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil toogasho ku fulisay laba askari oo ka kala tirsanaa booliiska iyo militariga kuwaasi oo 10kii Janaayo ee sanadkan 2023 dilal ka geystay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. labada askari ee tiirka la geeyay ayaa lagu kala magacaabi jiray Qaasim Ducaale Cabdi iyo Xasan Joole Shaakir kuwaasi oo ay horay u xukuntay maxkamadda ciidamada. Qaasim Ducaale oo ka tirsanaa ciidamada dawladda hoose ee Xamar ayaa degmada Xamarweyne ku dilay Allah u naxariistay marxuum Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani, halka Xasan Joole Shaakir oo isna ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo dil bareer ah u geystay marxuum Cali Taliya Cariif kaasi oo ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maanta ayaa laga oofiyay xadka sida uu sheegay xeer ilaaliye xigeenka ciidamada qalabka sida. dable dawladda hoose Qaasim Ducaale Cabdi waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani Abarimo taariikhdu markay ahayd 15kii bishii koobaad 2023. sidoo kale dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane Xasan Joole Shaakir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cali Taliya Cariif. maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa 1 dable dawladda hoose Xasan Joole Shaakir, 2 dable dawladda hoose Qaasim Ducaale Cabdi. wabillahi tawfiiq. dhinaca kale waxaa tallaabada ay qaaday maxkamadda soo dhaweeyay ehelada marxuum Abuukar Abirimo oo ku sugnaa goobta lagu fulinayay xukunka. maanta maxkamadda aad aynu qanacsan ninkii oo walaalkayga dilay Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani aragtidiisa ninka dil aragtidiisa shantii saartay alxamdulillah waan arkay balkii waa fuliyay guul ilaahay ka dhigo ma sha Allah wax ceeb ma laha dawladda xageedii ninkii cadaalad in lagu dilo cadaalad wixii dawladda markay wiilka la dilay aan dhahay anaga waxaan rabnaa cadaaladii Xasan Sheekh Maxamuud waa nugu oo ma yiraahin kan nugu ayiday maanta waa aragnay maxkamadda waxaan ma sharafta leh guul. Umar Maxamed, Hirshabeelle TV, magaalada Muqdisho.